saddexdii maalmood ee ugu horeysay isbuucan ayay yimaadeen duleedka Muqdisho iyadoo aysan jirin cid noloshooda kaabayso oo u taagan samata bixinta xaaladda hadda ay ku sugan yihiin 300 oo qoys ay dadkan ka kooban yihiin waxaana ay ku jiraan kaam ku yaala deegaanka Garsbaalley ee duleedka Muqdisho dadaalada lagu garab istaagayo oo gurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen kana imaanaya gobolada dalka wali ma aysan gaarin kaamka dadkan ay ku nool yihiin sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah qoysaska soo barakacay saamaynta abaarta waa ay ka wada siman yihiin qoysaskan laakiin waxaa jira kuwa qaba baahiyo ka badan xaaladda abaartu sababtay ee hadda ay ku sugan yihiin waxaa ka mid ah dadka dhibaatada gaarka ah dareemaya Cabdullaahi Maxamed isagoo oo dhalan 6 bilood ay hooyadiis inooga sheekaynaysaa dhibaatada hadda uu ku sugan yahay haddii ay jiraan in goobo caafimaad la geeyay Cabdullaahi 6 bilood dhashay waxaan ku dhashay dacara kurtuwaarey dhinacana ka jirnaa abis waxa ma haysto soo tag waxaan dhahay cunugan daawo helay aan baxaa qaxootiga cunugan aan soo orday aan waxaan anaga xoolaha haysan ma jiro hadan xoolaha haysan lahayn cunugan waa iska daawaysan lahayn waxa ku daawaysan male waxaan anagu cunaa soo wayn xoolo ma haysan waxaan haysan male waxaan ku noolaan baarihin ewer wax qalaas wax ku jiraan marka waxaan dhahay inta ilmaha birkooda wax gaar ku saartaa way soo tagay waxa cunug ilma jiro cunug yariis bas ay jirto iyo cunugan dhibaatada abaartu sababtay dadka gaar ahaaneedka u dareemaya waxaa ka mid ah Aamino Xuseen oo maalmo ka hor waxay lahayd arag wanaagsan laakiin abaarta awadeed iyo gaajo badan oo soo food saartay ayaa aragay tirtay markii la geero oo tayada oo laga soo baxa abalaawada barra ku balaawada iyo dakaan ku balaawada goormaad in dhalaan noqotay taleedo markii oo abaartan dhaweedo magaalada goormeed timid magaalada shalay soo gal shalay deegaankee ka timid deegaan waxa ka imeeday qornyolay baadiidis baadiyan in araggu uu ka tago maxaa sababay maxaa kugu dhacay ilaaha waa iska barareen waa iska dakaameen la hawla kale waa iska dakaameen kadib waad indha beeshay waa iska ilbeel bararada waa kuna buusina dhanka kale 1200 oo qoys oo barakacyaal ah ayaa soo gaaray degmada Dayniile ee magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafadda Warlalis hadda dadkaasi ma haystaan cunno ku filan oo ay ku noolaadaan wax agab ah iyana ma yaalaan halka ay joogaan deegaanka hadda ay ku sugan yihiin waxa ka jirta iyana baahi caafimaad gargaarka dawladda federaalka Soomaaliya ee loo fidinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo kan dadka iskaashanaya ay wadaan wali ma soo gaarin halkan meelo kala duwan oo ka mid ah caasimadda ayay ku sugan yihiin dadyo kala duwan oo ka yimid gobolada dalka isla markaana barakacyaal ku ah magaalada Muqdisho degmooyinka ku yaala daafaha magaalada Muqdisho ay dadkan ku sugan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya ilaa hadda ma aysan soo bandhigin qorshe cad oo lagu badbaadinayo dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay kana yimid gobolada dalka Calaadan Muumin Goobjoog Muqdisho